gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland oo ka soo guriyay noqday safar dheer oo ay ku gaala bixinayeen gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa uga warramay warbaahinta hawlihii shaqo ee ay ku maqnaayeen iyo waxyaabihii uu soo qabsamay muddadii ay safarka ku maqnaayeen. gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax waxa uu sheegay in kormeer dheer ay sanad kasta ku maraan gobolada kala duwan ee dalka sanadkii 2 jeer, isla markaana waxa uu sheegay in ay ugu muhiimsanaayeen foomamka la gaarsiinayo fasalada 8aad iyo 4aad ee dugsiga sare oo iyagu diyaar garoobaya imtixaanaadka shahaadiga ah. gudoomiyuhu waxa kale oo uu tilmaamay in sanadkan ay aad u kordheen fasalada 8aad iyo kuwa dugsiga sare labaduba, isagoo arrintaasina ku sababeeyay dadaaladii xukuumadda Soomaaliland ay bilaashka kaga dhigtay iyo lacag la'aanta waxbarashada dugsiyada hoose dhexe. waxa kale oo xusay in sanadkan ay aad u tiro badan yihiin isla markaasina ay qayb ka ahaayeen kororka dugsiyada macallimiin aad u tiro badan oo ay gunaysay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, isagoo uga mahadnaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Samsam Cabdi Aadan dadaalada iyo hawlgallada ballaaran ee ugu jirto sidii waxbarashada Soomaaliland loo wada gaarsiin lahaa guud ahaan gobolada, degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee dalka. ugu dambeynna gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka oo ku dheeraaday warbixinihii ay ka soo ururiyeen iyo xaaladaha kala duwan ee bulshadaasi ayaa ugu baaqay guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland in ay si mugla uga qayb qaataan dhismaha wadada Ceergaabo, isagoo tilmaamay in raf iyo dhib badan lagala kulmayo jidkaasi dheer isla markaasina ku dhaqan yihiin maati, xoolo dhaqato iyo dad beeraley ah. waxaan ugu dambeyn ugu bishaareeyay bahda waxbarashada in sanadkan uu ka duwanaan doono sanadihii hore isla markaana imtixaanaadka shahaadiga soo diyaarin doonaan guddiga imtixaanaadka qaranka oo kaliya oo aanay ku jirin macallimiintii dugsiyada kala duwan ee dalka. in badan bay ardaydu waxay ku dacayeen jireen xafiiska imtixaanaadku macallimiinta iskuul hebel ayaa imtixaanka dejisa macallimiin gaara imtixaanka dejisa. sanadkan adeer waxaan idinku bishaareynaa hadduu ilaahay ila xafiiska imtixaanaadku uu isku filan yahay ee farda la isku hayo maxaa la iskaga faari ninkii wax isla hayo ninkii ku barmarsiyoonayo ninkii lahaa macallimiin baa imtixaanka iskuula siisow laga bilaabo imtixaanka imika aanu qaadana sanadkan lagu soo socdo June hadduu ilaahay yidhaah laga bilaabo hal macallin oo iskuul uga yeedhnay oo imtixaan noo dejinaya ma jiro.